ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa markii mustaqbalka la yiraahdo muxuu Xasan Khayre ku soo kordhiyay shaqada wadankan kaliya hal mid in la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed ayuu soo hor istaagay runtuuna u sheegay hatta haddii ay kalifayso run sheegiddu inaan shaqadayda ku waayo diyaar baan u qof walba Soomaaliyeed oo maqlaysa iyo idinkaba waxaan idin sheegayaa haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto kaligay kama qaban karo madaxweyne Farwaajina kama qaban karo haddii aad rabtaan dalkan in wax laga qabto waxaan idinka codsanayaa inaad istaagtaan koow inaad ka bilowdaan carruurta Soomaaliyeed inaad u dejisaan manhajkii lagu bari lahaa idinkoo Soomaali isku soo dhaweynayo labo inaad kulligiin is abaabushaan oo istaagtaan oo la xisaabtantaan dawladda Soomaaliyeed saddex inaad su'aalo isweydiisaan ma dad baan nahay lagu yaqaanay karti iyo sharaf oo magacooda la yiraahdo Soomaali oo taariikhda Afrika iyo dunida laga yaqaan oo sharaf lahaa mise waxaan noqonaa inaan niraahdo hebel xabad baa lagu dhuftay hebel baa ku dhuftay Allah u naxariisto hebelka ku dhuftana waxba laga ma qaban karo waayo hebel iyo hebel baa qaylin doon bisiina sadartan dalkan inuu ku socdo haddii ay jawaabtu maya tahay haddii damiiro ay nagu hartay haddii aad rabtaan carruurtiin inaad wax uga tagtaan haddii aad rabtaan sinna inaad u soo celisaan karaamadda iyo ummadda Soomaaliyeed lama sugi karo berito maanta waa inaad istaagtaan maanta waa inaad isabaabushaan maanta waa inaan bilownaa sidaan uga shaqayn lahayn jidadka magaalada sidaan u nadiifsan lahayn guryahan naga dumay sidaan u dhisan lahayn dadka qalbigooda hoose dumay sidaan u kicin lahayn maanta waa inaan Ilaahay ka wada cabsanaa oo qabiilka dhinac isaga dhignaa maanta waa inaan wada aqbalnaa musuqmaasuq iyo laaluushku inuu dalkan dumiyay maanta waa inaan aqbalnaa inaanay adduunyo noo imaanayn dalka noo dhisto qof walba oo Soomaaliyeed oo maqlay waxaan rabaa maanta inaan u sheego inaan hortiina ka qiro inaan anigu diyaar u ahay qaybteeda inaan qabto su'aasha la isweydiinayo waxay tahay marka ma jiraan shacab Soomaaliyeed oo diyaar u ah dalkan inay dib u xoreeyaan haddaad diyaar u tihiin annaguna diyaaran والسلام عليكم ورحمة الله